Mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa dalbanaya in la joojiyo barnaamijyada lagu tababaro ciidamada ajaanibta ah ee gudaha waddanka Mareykanka kadib markii askari ka tirsan ciidamada cirka Sacuudi Carabiya kaas oo ku tababaranaya saldhig ciidamada cirka Mareykanka ay ku leeyihiin gobolka Florida ee dalka Mareykanka oo weerar ku qaaday gudaha saldhiggaasi halkaasina uu ku dilay 3 qofood halka uu dhaawacay 7 kale. Senatarka Jamhuuriga ah ee lagu magacaabo Lindsey Graham ayaa sheegay waraysi uu siinayay Fox News inay waajib tahay in la joojiyo barnaamijkaasi ilaa laga soo ogaanayo dhacdadii ka dhacday Florida waxyaabihii ka dambeeyay. Waxa uu sheegay Lindsey Graham, Sacuudigu waa dal saaxiibo aynu nahay, laakiin waxyaabo fara badan ayaa khaldan, waxaana waajiba in barnaamijkaasi la joojiyo. sidoo kale xildhibaanka Jamhuuriga ah ee laga soo doorto gobolka Florida ninka lagu magacaabo Matt Gaetz ayaa isna ku baaqay in barnaamijka la joojiyo. Gaetz oo la hadlayay kanaalka ABC ee waddanka Mareykanka ayaa yiri ma habboona inaan soo dhaweyno dadka noocaasi oo kaleeta ah, waa inaan abuurnaa kalsooni, waxaana waajib ah in dadkaani la baaro inta aanay ku soo biirin saldhigyada. Wasiirka arrimaha difaaca waddanka Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in ay waajib tahay in Pentagonku uu dib u baaro dhaqannada iyo sidoo kaleeto sida ay u fakaraan askartaasi. Esper oo isna waraysi siinayay shabakadda Fox News ayaa yiri markii ugu horreysay ee arrintaasi ay dhacday waxaan fariin digniina u diray dhammaan saldhigyada ciidamadeenna ee gudaha waddanka Mareykanka si ay uga digtoonaadaan in barnaamijkan weerarka ah uu yahay mid isku xiran. gudaha waddanka Mareykanka waxaa ku tababarta 5,000 oo muwaadiniin ajaanib ah oo ah askarta dowladaha ay saaxiibka yihiin dowladda Mareykanka, waxaana ka mid ah 852 ka socota Sacuudi Carabiya. goor dambe ayay Mareykanku sheegeen in fuliyaha weerarkaasi uu ahaa Maxamed Saciid Shamraani oo ka tirsan ciidamada cirka Sacuudi Carabiya.